جزاك الله خيرا. سؤاشينا سغاشناد waxaan nahay dad aad u badan oo gaaraya 200 qof. waxaan ku jirnaa kaam qaxooti ah oo ku yaala dalka Belgium. waxaana loo keenay hilibyo kala nooc ah, mana garanayno in lagu gowracay si waafaqsan sharciga islaamka, laakiin waxa ka mamnuuca xirada hilibka doofaarka. waxaan aragnay xadiidkan, xadiidu Aisha radhiyallahu anha fi al-Bukhari, anna nasan qalu ya Rasul Allah inna qawman ya'tunana bil-lahm la nadri adhkira ismullahi alayhi am la, qala sammu alayhi antum wa kulu, qalat wa kanu hadithi ahdin bil-kufr. ma loo daliishan karaa xadiidkan maadaama aynan garanaynin inuu yahay xalaal? بسم الله. جوابت وحوي ذبائح ذا أهل الكتاب شيء لقورعه قورع عيسو لازم كيه عدة قورع عيسانا حكمك سامين بكليه قابك اللو قورع عينا سامين بكليه عدة قورع عيسى هديتها مسلم أما أوي هي أهل الكتاب يهودي أما النصراني كريستاني مدي سايست أما يهودي أوي قور عود وصحيح مسلم كيسجى قرني لكن لو ذن كلوحة الماما يا آيات القرآن كرب يلي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبائحهم سيدي مفسرين تسلف كي خلق مفسرين وحي أهل الكتاب كقورعان حلال بو إذنيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا حديث نصاص عد يسوي أهل الكتاب كوحي قورعان حلال بو إنويه. طيب لكن محا شرطية وإني قورعان وإني قورعان قورعي دين تشيكتي أو إمبر لمريو كدبنا لقويو محوها هاي هالبولياشن دونتي وضه ديك وضه قورع صحيح سداس هدي قورعان ونوبنا انتهى إنا نعنو لكن هدي كدلان كورنتو أما أي عيشيان أما أي بالرصاص يحبت كدلان مركا وحران وبختي مركا. طيب سداس دراديد وحان ديه لها سدا بدن مجتمعات كالريق قلبيتك رee Yurub badankood sida taqariir badan ay sugayso diin male krishtanna ma aha diinna ma haystaan waa mulxidiin zanaadiqo oho diin ba aan haysaninba waa horay diimihii ka tageen وبالتالي إن بدنوا أيها كم ذا أهل الكتاب معها قورع عودنا بالإجماع وحران حتى هذا يبرت مريان صوتهم حيث هاي أهل الكتاب وحي كصهروا قالاء قورع عود وحران حتى هذا قورعان أهل سيدا تقاريرتا أي قريان مراكز الدراسات كالرجال بيت كاللفتوض أي قريان إن بدن أهل الكتاب ككمد وحنو كذا كمد الرأي يوروب هذين بدن كود بأهين دين ما هيستانوا أهل الكتاب ما نصارنا كما ترسنا يهودنا كما ترسنا هل كهرت وقضب كلا بعده هيلبك هداد جروي ذو ملك جورعي مثل ما جورعين يا جورعي ما مسلم ما أهل الكتاب ما قال كلا جورعي ما تقاني عيد جورعي إن لجورعينا ما بجرنا يسد وكويمت هيلبك بعدهش محلال با mise waa xaraan waxay ku xidhan tahay meesha marka aad joogto maxaa u badan see u badan meesha marka aad joogto haday u badan tahay in la gowraco hilbah cidda gowracaysana ay tahay cidda gowriciisu ay inoo banaanayd marka hilibka aan meesha ka helay waa iska cuneynaa bismillaah baan leena waana cuneynaa maxaan ku xambaaraynaa sida badan baan marka ku xambaaraynaa نادر كحكم ماله هدي ماشا مركا أتشوكتو هيلب كاس أن لجورع إمبا أما ما هو لجورع لكن دتك جورعاي ما هدتك ينوبنا نتجورع عودو ينوبنا مركانا دنكا هدي أبضن تهينا ما بنانا هيلب كميلها أتكيش إن أتسكعنتو لأن الحكم للغالب حكم كوحة إسكال مرولبا ماشاسي سي أبضن تهي دنكا أرنتو أبضن تهي sidaasi marka la yiraahdo
inta aan ka aqaano Yurub iyo wadamadaas hadda la sheegayo sidaan yani intaan ka garanayo gowrac sharciya in la gowraco uma badna sida qaalibka ah waxaa dila xoolaha laaya mashiin baa disha bastoolad baa lagu dhuftaa kadibna mashiin bay maraan mashiintaasaa qoorta ka goysa wakadalika digaagta wixii la gowrici lahaa oo dhan mashiinaa laaya mashiinta ayada mashiin bini aadan bir u bini aadan hayo ku gowracaya ma horumarinaya ma laakiin waa automatic waa neefkii waa socdaa warshadu soo maraya markuu meel madaxa la soo galo ayay birtu marka ku dhufanaysa dhag madaxii bay goynaysaa marka intiisii kale warshadu sii galaya kadibna warshadaasi kala harga ka siibi oo qaybin oo wahaakada marka birta iska socotay qubqacda ku haysaa bini aadan ma waxay dishana waa baqti waana sida Yurubiyaanku u badan yahay muslimiinta Yurub ku nool inta badan hilibka ay cunaan waa hilib si gooniya meel gooniya lagu soo gowracay sharikaad gooniya soo sameeyeen lagu soo qoray xalaal la yaqaano hilbaha noocaas ay inta badan ayay cunaan hilbaha caamka marka yaala maqaayadahooda yani yaala mesela hoteeladooda yaala mesela supermarketyadooda taqriiban ilaa la hubsado in xalaal lagu gowracay lama cuni karo maxaa yeelay ama cid aan muslimin ahayn ahlul kitaab ahayn baa gowracay ama lamaba gowracin oo gowrac sharciya lama marin saasay u badan tahay saas daraadeed lama cuni karo ilaa in la iska hubiyo mooye dadka xiriyaha ku jira iyo dadka la midka marka waxaan dhihi lahaa waxaad ku kaaftoontaan malayga cuna malaygu isaga gowrac male sooma gowrac male isagaas raadsada oo isaga noo keena dhah naga daaya dhaha hilbaha doofaar xerada lama keeno hilibka kale ma xalaaleynayso haddii doofaar lagu celiyo laga celiyo oo baqti lagu keeno maxay isdhaabaan marka hilib aan la iska hubinin meelahaas iyo wadamada Yurub Mareykanka Canada Australia wadamada noocaas oo kala wadamadaas kale ee China iyo Asia fogay gaalada ka basii daran baa iyagu lama cuni karo ilaa la iska hubiyo warku murtidiisu waa inta wallahu a'lam jazakallahu khairan xadiidkii ahaa uu keenay saa'ilku oo ah xadiidkan soo looma daliishan karo in hilbaha iska cunno xadiiskaas muxuu yahay xadiidku wax weeyaan xadiid Aisha laga warinayo Bukhari iyo Muslim ay soo saareen dad baa waxay nabiga ku yiraahdeen rasuul ilaahay dad baa hilib noo keenaya hilibkaana ma ogin in ilaahay magaciisa lagu xusay iyo in aan lagu xusin tayib ma cunna hilibkaas cuna oo markaad cunaysaan ilaahay magacaabo idinku bismillaah inta dhahdaan iska cuna xadiidka waxa ku sugan dadkaasi waxay ahaayeen kaanu xadiithi ahdin bil kufri dad mar dhow gaalnimada ka soo baxay oo soo islaamay bay ahaayeen xadiisku muxuu ka hadlayaa marka ma gowrac muslimiin buu ka hadlayaa mise gowrac gaalu ka hadlaya xadiisku wuxuu ka hadlayaa dad muslimiin ah oo islaamnimadoodu cusub tahay wixii ay gowraceen bay saxaabadu ka shakiyeen maadaama ay cusub yihiin laga yaabo inaynan qaabkii loo gowracayay sixin bismillaah inaysan dhihin waa dhici kartaa shakigaas saxaabada ku dhashay ma cuna rasuulilaahi wuxuu yiri idinku bismillaah dhaho iska cuna maxaa laga wada marka xadiidka waxa laga qaadanayaa aswaaqda muslimiinta hilibka yaala iyo muslimiintu wixii ay gowracaan asalku waa inuu xalaal yahay حتى رباديها أهدن أعرابها أهدن جاهلينها أهدن لأن أصلك وحلو حنباريا إني جورعين وسيسحك وجورعين بالو حنباريا أعرابته مسلمين تأيو أصل أهان ساس بالو حنباريا مركه هيلي بمسلم جورعي أو لقى شكيب حديث كسب سيه واحد ودل يشري إشكالك أو كان يعني عدة سوق قرتين وحويان هيلي بقال سوق جورع أما واحد جورع أنا لقرني إنه مركه حديثكو دليل أمن نقون كريه هيلبها النوع عاصي إن لسكعنه والله أعلم